بسم الله الرحمن الرحيم. maanta bishu tahay 11 bisha Janaayo 2020 waxaan ku qabanaynaa safaaradda Soomaaliya ee magaalada Ankara shir jaraa'id. shirka jaraa'id oo ku saabsan saddex qodob. qodobka koowaad wuxuu ku saabsan yahay dadkii la keenay caafimaadka loo keenay dawladda Turkiga keentay labada jeer oo qaybta koowaadna ahaayeen 16 qof oo hal inaan inaga dhimato ardayda hayd Ilaahay u naxariisto oo 15 qof inoo soo hadheen halkan lagu daweynayay iyo lodkii labaad ee la keenay bishan bilowgeedii oo iyaguna qarxii afkooda ka dhacay 6 qof ahaa dawladda Turkiga si fiican bay u daweysay gacantayna ku haysaa wayna iskaxil qaantay waxaan maanta cadeynayaa dawladda Turkiga runtii inay xil aad u badan iska saartay dadaal badan ku bixisay si aad u wanaagsan oo daacadnimo ku jirto loo daweeyay dadkii kale hore u joogay Turkida ahaa laga hormariyay heegan loo ahaa ilaa iyo maalintii la keenay dadka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed halkan joogta iyo safaaradda iyo ardayda intuuna heegan u ahaayeen oo aan waxba loola kala hadhin runtii dawlad iyo safaarad iyo shacab iyo arday maalin walba la dul taagnaa lacag loo ururiyay la wada siiyay baahiyahoodii oo dhan wixii laga qaban karayay lacagtu ku filnay laga qabtay ilaa iyo maanta oo aan hadlayo guddigii dhaqaaluhu wali dhisan yahay intii karaankoodan ay dadaalayaan dawladda Turkiga arinta aan aad uga mahad celinayno anigoo safiirkii ah ama danjirihii ahna aan uga marxaati kacayo runtii inay aad iyo aad si xil kas ah oo mas'uuliyad ku jirto ay bukaanka isaga xil saareen oo aanan ogeyn wax dayac ah oo ku yimi dadka ku yimi taas marka waan uga mahad celinaynaa dawladda Turkiga sida isaga xil qaantay sida markii hore u dadaashay iyada isu dirtay oo madaxweynaha dalka Turkiga ayaa isagu go'aansaday inuu dadka caawiyo annagu ma aanan ku kalifin mana aanan ka codsan runtii dad badan baa waxay sheegtaan waxay iyagu qaban waana dambi qofku wuxuusan qaban inuu sheegto dawladda Turkiga iyada ayaa saas u xilqaantay iyada dadka soo qaaday iyada ku kharash garowday diyaarad ambulance u dirtay dadka ilaahay haddana maanta gacanta ku haysa qodobka labaad dadka keenistooda oo ku yimi si degdeg ah oo aan fiisa ku iman haddana sida ku jooga qaar aan baasaboorro wadan ba ay ku jiraan waxa anagu safaarad ahaan aanu ku leenahay shaqadooda inaanu la socono daryeelkooda baahidooda inaan la socono marka ay la keenay inaan wax ka dejinay oo aan wax ka ogeyn maalin walba inaan u sameeynay dad shaqaalaha safaaradda ah howlwadeennada safaaradda ah ardayda guddiye aan ka sameeynay dadweynaha inay maalin walba dul taagan yihiin sida ay u caawin lahaayeen xaaladahooda ula socon lahaayeen har iyo habeen ardaydu 24 saac way isu bedelaan qof kasta dad baa dul taagan oo turjumaan ah oo caawinaya laakiin safaaraddu celinta dadka shaqo kuma leh celinta dadkaas markay bogsoodaan ama shaqadii halkan looga qaban lahaa ay dhammaato waxa go'aanka ugu dambe ugu horeeya qaata dhakhtarka daweynaya isbitaalka qofku ku jiro dhakhtarka ku shaqada leh ayaa wuxuu soo qoraa warbixin uu u qoro wasaaradda caafimaadka Turkiga waaxda qaabilsan xiriirka arrimaha dibadda gaar ahaan waaxda gacanta ku haysa dadka dhaawaca ee Soomaaliya la keenay markii warbixinta uu diro dhakhtarku annaga inala soo hadlaan waxay yiraahdaan qofka noocaas ah ee dhakhtarka ku jira ee hebel hawshiisi waa loo dhameeyay waxaanu doonaynaa inaanu tigidhka u soo jarno tigidhkana waxa u soo jaraysa wasaaradda caafimaadka oo kharashkooda ku bixinaya oo soo iibinaya tigidhka marka qofkaas waanu diranaa tigidhkiisina waa u diyaar dhakhtarkiina wuu fasaxay kaalay oo madaarka nala geeyay marka dadka dhoofinta la dhoofinayo ama la celinayo hadda aan maqlano meediyaha in la geliyo warar ku turkutaan ah oo inay safaaraddu dad celinayso khasab ku celinayso warkaas waxba kama jiraan hadday annaga taayada tahayna waanu haysan lahayn dadka ilaa ay ka bogsoodaan oo ay ka socdaan oo sidooda ku soo noqdaan laakiin dawladda Turkiga ayaa go'aanka iska leh go'aankana waliba waxa iska leh
qofka dhakhtarka ah ee qofka gacanta ku haya isaga ayaa qof kasta uga aqoon badan hadduu qofku dhakhtar kale u sii baahan yahay shaqo kalena isaga og hadday u dhamaatayna isaga og sida awgeed dadka hadda maamo Shariifo oo meediyaha ka hadashay labada gabdhood u hadashay ma aha dadkii ugu horeeyay la dhoofiyay ma aha dib loo celiyay dad baa ka horeeyay oo habeen ka soo horeeyay la diray iyaguna waa groupkii ku xigay weeye markii kadib markay wasaaradda caafimaadku ku qanacday dadka in la diri karo suurtagal ma aha wasaaradda caafimaadku qof u sii baahan dhakhtar inay dirto suurtagal ma oo ma oran karno maanta dhakhtarku report khalad uu ku qoray waxa sax ahayn sababtoo isaga bilaash ku daweynay isaga habeen u taagnaa marka arintaas waxaan cadeynaynaa inay khalad tahay war khalada ay tahay haddii aan anagu sii xooraansanay labada gabdhood ka qabana labada gabdhood dibka ugu badan hadda ay qabaan lugahay ka jaban yihiin waana la kabay birihiina waa laga saaray waxa ku jira waa plastic weligii ku jiri doona oo aan laga saarayn firir baa gabdhaha mid kamid ah madaxa kaga jira firirkaana lagama saari karo oo caafimaad ahaan waxa loo xaqiijiyay in la taaban karin firirkaas wax dhibaato ay noo sheegeen ma jiraan waxayna ku qanacsan yihiin saakadana aan joogno in gabdhahaas la saari karo wixii ka dhimanna xagga loogu dhameystiri karo waxay kaliya ka dardaarmeen in ay gabdhaha 2 bilood ama 3 bilood ayaan istaagi karin maadaama meelaha ay ka jaban yihiin qaarkood ay tahay cidhibta oo ay fadhiyaan ama jiifaan intaana meel walba waa jiifi karaan dawladda Turkiga waxay ku qanacday kuwii hore ay dirtay iyo kuwa hadda ay diraysoba in aysan wax fara badan u harsaneyn qodobka saddexaad oo rabeen halka kaga hadlo waxa weeye dadkan xaaladda lagu keenay oo degdeg ahayd waxay xaalad aan laga gaari karin dadka in fiisayaal caafimaad loo sameeyo marka fiisayaal caafimaad dadka ku yimaada waad ogtihiin Soomaali badan baa halka timaada qofka fiisa caafimaad ku yimaado inta muddada fiisihiisa uu joogi karaa hadduu iqaamad samaystana uu sii joogi karaa laakiin dadka hadda la keenay oo qaabkan ku yimi arintaas suurtagal uma aha sharciyan wax wasaaradda caafimaadka ku xidhanna ma aha wax wasaaradda arrimaha dibadda ku xidhanna ma aha wax safaaradda ku xidhanna ma aha waa wax immigration-ka iyo wasaaradda arrimaha dibadda arrimaha gudaha ku xidhan weeye arintaasi qofkii la keenay haday hawshiisa u dhamaato suurtagal ma aha in fiise inta la siiyo gudaha lagu siiyo loo kordhiyo iqaamad loo sameeyo waqtigii loo kordhiyo suurtagal ma sababta markii horeba fiise kuma soo gelin qof walba oo wax garanayaana arinta uu garanaya baasaboorradooda waxba kuma dhigana shaambad baa saaran 15 casho ku qoran tahay oo fiisa ahayn oo degdeg ah shaambad waliba marka la sameeyay sida ka muuqata si loo soo geliyo dadka noocaas waxay naga dalbadeen dadkan hadda cabanaya iyo dad kaleba waxay naga dalbadeen in aanu dawladda Turkiga u weydiino inay sii joogaan haddii aan u weydiinina dawladda Turkiga waxay hor dhigtay xaqiiqo ah dadkan maadaama ay fiisa ku soo gelin qaab fiisa ama iqaamad loogu sameeyay gudaha dalka ma jirto cabashada ugu badan runtii taas ay ka imanaysaa dad badan baa doonaya inay iska sii joogaan inay Turkiga degaan in ay maaragtay sida dad kale Soomaaliduba u degayn ama u rabaan dad badan inay Turkiga soo degaan taasina macal asaf sharciga ay ku yimaadeen uma fududaynaya arintaas qof walba oo immigrationada iyo fiisayaasha wax ka yaqaanaana arinta uu garanaya waxa ugu badan oo hadda dad ku qaylinayaan anagu intaan ognahay oo in media ka sheegayn laakiin anaga ay noo sheegayaan waa qodobkaas weeye qodobkaana runtii anagu safaarad ahaan waan u codsanay laakiin wax suurtagali kara waana lagu qanciinay wax suurtagali kara ahayn waxaan ku soo gabagabeynayaa dadka walaalaheen ah ee Soomaalida halkan lagu daweynaya Ilaahay ha caafiyo wanaag baanu la rabnaa in la dedejiyo ma rabno in ay noo sii joogaan baanu rabnaa annaga dhaqaalaha iyaga u ururinay dadweynaha u soo ururiyay guddigii baa gacanta ugu hayo u qaybiyay cid lacag weydiisatay ma jirto suurtagalba maaha haday tahay dhalinyarada ardayda haday tahay dadweynaha haday tahay hawlwadeenada safaaradda waa been abuur la abuuray waxaasi wanaag baanu la rabnaa dadkeega dhibaataysan habeen iyo maalin baan u soo jeednaa u taaganahay dawladda Soomaaliya hadda dhisan qaybaheeda kala duwan safaaradda kulligood waxay u taagan yihiin daryeelka ummadan
haddii dhibaata gaadha sidii loo badbaadin lahaa. dowladda turkiga iyo dowladda qatar iyo dowladda kalena waxay nagu caawiyaan in wax awoodayada ka baxsan inay daweeyaan. waana u mahad celinaynaa, inaan ka abaalka dhacno maaha. 100% baan u mahad celinaynaa dadka naga caawinaya dhibaatada ay argagixisadu nagu hayso, dadka naga caawinaya ama ciidamo noo tababaraya ama dadka dhaawacmaya noo daweynaya. abaal weyn baan u haynaa, mana ilaawi doono. Soomaalidana waxaan ka codsanaynaa in ay noqon dad abaal dhaca. wasalaam.